Filimka maanta aan rabno inaan ka sheekeyno waa filim Talyaani ah. Wiilkan ayuuna ku saabsan yahay. Wiilkan mar walba iskuul ayuu dhigtaa, wuxuuna jeclaaday gabar aad iyo aad uga daaweyn. Gabadhan waa mid mar walba soo marta xaafad ka mid ah xaafadahan iyo dadkan duqoshinka ku nool yihiin. Waa gabar aad iyo aad u qurux badan, dadkoo dhanna way soo eegaan, xitaa ragga waaweyn way soo eegaan. Gabadhan marka ay socoto aad iyo aad ayaa loo eegaa. Waxaana jira wiilkan oo 15 jir ah oo gabadhan aad iyo aad u jeclaaday, kadibna mar walba wuxuu jecel yahay inuu arko. Masaafo dheer ayuu usoo jaraa si uu mar uun u arko. Gabadha ayuu jecel xad daaf u qaaday balse way ka da'weyn tahay. Mar walbana wuxuu jecel yahay inuu arko. Balse aabihiis ayaa maalin garaacay maxaa yeelay wuxuu u gambiyey iskuulka si uu gabadhaas u arko darteed. Isagana waxba uma aragin inuu iskuulka u gambiyo maxaa yeelay gabadhaas ayuu jecel yahay inuu mar walba arko. Aabihiis ayaa si xun u garaacay maalin. Mar walba basiil ayuu soo qaataa, kadibna wuxuu soo maraa meesha iyada marto si uu u arko. Xitaa marka qaar gurigooda ayuu baqbaq ka soo fiiriyaa si uu u arko waxa ay samaynayso habeen walba. Wuxuu niyeystaa asagoo oo la jooga. Filimka waa filim Talyaani ah, magaciisa waxaa la yidhahdaa Malena. Gabadha mar walba wajigeeda waxaa ka muuqda murug murug. Waxaa dhalay macallin wax ka dhiga iskuulka uu dhigto wiilkan. Mar walbana wuxuu niyeystaa inuu u soo dhawaado gabadhan. Gabadha waxay jelaysaa mar walba murug murug, wajigeeda murug murug ayaa ka muuqata. Wiilkan laakiinse wuxuu jecel yahay inuu la hadlo uu wax la qabto, balse aad ay uga da'weyn tahay. Mar walba waxay soo martaa meeshan gabadha, asagana meeshan ayuu baaskiil ku wadaa. Gabadha mar walba waxaa la socda waardiyaal, isagana waardiyaasha ayuu iska eegaa si uu gabadha mar uun u arko ama u dabagalo ilaa gurigeeda. Mar ayuu usoo dhuntaa si uu u arko. Wuxuu niyeystaa mar walba asagoo garab siinaya gabadha maxaa yeelay isaga jecel xad daaf ayuu qaaday balse aad uga da'yar wiilka waa 15 jir, gabadhana waa 36 jir. Maalin ayuu kaniisadda imaaday, kadibna wuxuu caddeeyey inuu aad iyo aad u jecel yahay gabadha. Macallinkan ayaa dhalay. Mar walba wiilkan gabadha wuxuu isku dayaa inuu la hadlo balse lama hadli karo, iskuulkan ayuu dhigtaa. Gabadha mar walbana murug murug ayaa ka muuqata. Isagoo markuu arko wuxuu is dhahaa gabadha maxaa haysta bal caawi isku day inaa caawiso. Habeen ayuu usoo dhuntay gurigooda si uu baqbaqa uga fiiriyo gabadha. Geed yar ayuu usoo koray wuuna usoo dhuntay. Baqbaqa ayuu ka eegay. Markuu baqbaq ka fiiriyo wuxuu arkay asagoo nin la jooga. Ninkana iyada ay dhibsanayso. Kadibna waxa ayuu ku tuuray balse lama arkin. Baqbaqa ayuu zaid uga fiiriyey. Kadibna wuxuu arkay asagoo shumanaya gabadha. Kadib ninkii banaanka ayuu usoo baxay, waxay is arkeen nin kale oo duq ah. Kadibna ninkan ay is qabteen. Wiilkii geedka ayuu ka fiiriyey. Ninkan ay is qabteen, kadibna way islegdeen. Kadib waxaa ku soo baxay dadka xaafadda. Filimka waa filim Talyaani ah oo ka sheekeynaya dadkii hore ee Talyaani ah ee ku noolaa xaafaddaas. Talyaaniga waa ayuu dunida soo xukumi jiray. Gabadha mar ayaa maxkamadda la geenayaa iyadoo lagu darayo ninkan duqa ah. Balse iyada ma jecla ninkan duqa ah oo wax isku dayaa inuu xoogo. Kadibna iyada waxay leedahay waad iga weyn tahay ha ii soo gelin. Wiilka aad ayuu usoo dabagalayaa mar walba. Wuxuu jecel yahay inuu arko waxay gabadhan ay la murugsan tahay. Gabadha aad iyo aad ayay u murugsan tahay. Wiilkana mar walba wuxuu jecel yahay inuu garab siiyo balse ma awoodi karaa maxaa yeelay gabadha aad ay uga da'weyn tahay. Waxaana dhalay macallinka. Macallinkiisa ayaa dhalay. Dadka familkeeda ah ayaa mar walba ilaaliya gabadha oo waxay leedahay bodyguard badan. Ninkaas duq ah ayaana lagu daray iyadoo raalli ka ahayn. Wiilkan aad ayuu usoo dabagalaa xitaa baqbaq ayuu ka fiiriyaa qolkeeda. Isaga wuu yar yahay balse jecel xad daaf ayuu u qaaday. Iyada mar walba waa ay murugsan tahay. Isna wuxuu is leeyahay maxaa ku dhacay gabadhan ay la murugsan tahay. Mar walba wuxuu jecel yahay inuu garab siiyo, wuxuuna usoo lugeeyaa baaskiil usoo qaataa si uu iyada u arko bis. Aabihiis ayaa jiro oo asnagana waalan oo mar walba isku daya wiilka inuu garaaco iyo familkaba. Gabadha maalin ay zaid soo qurxisay, kadibna waxay isku dayday inay murugta iska saarto. Magaalka inay soo dhex gasho. Waxayna aragtay raggii oo dhan u heelan. Maalin ayaa waxaa dhacday in gabar la soo saaro, kadibna lagu eeday dambi ay gashay. Dadka xaafadda waxay isku raaceen gabadhaas inay dambi gashay.
dadkao dhan ayaa ka dooday gabadhaas inay dembigaas ay ku caddaatay kadibna ay dembiile ay tahay. Dadkii oo dhan waxay isku raaceen gabadhaas inay dembiile tahay waana lagu sheekeysanayay. Wiilkani wuxuu iska soo dhigay mid ka mid a dadka ka shaqeeyo xaafaddan. Kadibna wuxuu isku dayay sidoo kale inuu u dhaqmo balse lama soo dhaweynin. Waa laga sii jeestay. Wiilkan gabadhan ayuu aad iyo aad u jecel yahay mar walbana jecel xad daaf ayuu u qaaday ayadoona ka fikira hadduu guriga tago. Maalin ayaa warqad ayuu wuxuu arkay mid ka mid ah shaqaalayaasha u shaqeeya gabadha. Warqadan ayuu arkay oo ah in lagu diray gabadh. Gabadha nin duq ah. Kadib wuu soo waday magaalka ayuu ku soo waday. Kadib dadka ayaa yaabay waxay is dhaheen sababta ay u soo raacday maxay tahay ninkan. Maxaa yeelay gabadha waxaa lagu xiray nin duq ah. Ninkan wuxuu isku dayaa gabadhan dhibkeeda inuu la qaybsado sababtoo ah gabadha ma rabto ninka duq ah. Dadkii oo dhan waa la yaabeen maalin ayay magaalada soo mareen waa in ku sheekaysteen. Kadib maalin ay gadaal u soo jeestay wiilkan ayaa mar walba daba gala. Wuxuuna isku dayaa inuu caawiyo uu garab siiyo iyada. Balse iyada waxay is dhahdaa wiilkan wuu kaa yar yahay yaan laguga arkin. Wiilkan balse mar walba wuxuu isku dayaa inuu garab siiyo gabadha. Maalintaas waa ay ka tagtay wixii ka dhacana waa uu ururiyey. Gadaal ayuu soo jeestay mar walbana wuxuu jecel yahay inuu arko iyada. Gabadha mar walba waa ay murugsan tahay. Wiilkaana mar walba wuxuu isku dayaa inuu garab siiyo iyada uu ogaado sababtay u murugsan tahay waxa ay tahay. Gabadha iyadoo raali ka ayaa nin lagu diray. Wiilkaana mar baqbaq ayuu ka soo fiiraa si uu u arko bis iyada. Ninkan waxaa la jelay 2000 waxaana la yiraahdaa Malena. Qofka u baahan